la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha gobolada bari ee Soomaaliland oo muddooyinkan ba socdaal ku joogay degmada Xudur ayaa sheegay in heerka xaaladda nolosha jiidahaasi ay haatan aad u wanaagsan tahay dhibaatooyin dhinaca ammaanka ahina ayna haatan jirin iyadoo oo shaqaaqooyin deegaanka ka dhacayna ay si fiican xal u helideeda uga howlgaleen lana soo afjaray waa dhulkaasi waa barwaaqo waana lagu nabad qabaa shaqaaqa yaroo mar xudun ka dhici jirtayna fiican bay u dhammaatay alla barigii baa ka dambeeya waa la baryayaa waa nabad dhulku hal dil oo naxdin oo maalin dhaweyd ka dhacay laba beelood oo wada degaari cadeeye oo gurmad xoog leh u baahan ma ahaana dhulku waa nabad waana barwaaqo waa la fiican yahay dadkuna waa isku dhex jiraa wax dhibaatii ma jiraan waqtigan dee hadda qayla ma taagna laakiin haddii abaari kacdo oo dee biyaha roobku guraan dhulku waa biyala yahay waxay u baahan yihiin in wixii loo qaban karo biyaha looga qabto balfiyadii dee laysku dayo in wax loo qabto Fuaad Aadan Cadde la taliyaha madaxweynaha ee gobolada bari waxa uu geesta kale tibaaxay baahida loo qabo in loo howlgalo wax ka qabashada horumarinta adeegyada bulshada isagoo geesta kalena ugu baaqay qurbo joogga iyo ganacsatada deegaanka degmada Xudur inay ka qayb qaataan kaalinta uga bannaan horumarinta baahiyaadka degmada gacan buuxdana ay markaasi ku siiyaan xukuumadda Soomaaliland